Putin la'aantii waa Russia la'aanteed taasi waa aragtida uu qabo gudoomiyaha aqalka baarlamaanka Russia waana ra'yiga malaayiinka Ruushka ee Vladimir Putin mar kale u doortay madaxweynaha Ruushka waxaana muuqata in ugu dambeyntii Putin ku qanciyay shacabkiisa inaanay suuragal ahayn in cid kale lagu bedelo isla markaana uu yahay shakhsi aan laga maarmi karin barnaamijkeena xogaha dahsoonna waxaynu ku soo qaadanaynaa qaabka uu Putin oo ahaan jiray basaas darajada hoose oo ka tirsanaan jiray sirdoonkii hay'adii KGB ee dalkii Midowgii Soviyeeti uu isugu bedelay ninka ugu awoodda badan dalkiisa amaba haatan caalamka oo dhan tan iyo bilowgii qarnigii 20aad waxaynu arkaynay iyada oo uu Russia madaxweyne ka yahay Vladimir Putin isagoo isaga dabqaadiyay xilalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isagoo oo ra'iisul wasaare loo magacaabay sanadkii 1999 dabeetana uu madaxweyne ahaa intii u dhaxaysay sanadihii 2000 ilaa 2008 haddana uu ra'iisul wasaare ka noqday wadanka intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2012 xilliga uu ahaa markii uu dastuurka wax ka bedelay si loo muddo dheereeyo xilliga madaxweynenimada oo ahaan jiray 4 sanadood lagana dhigay 6 sanadood markii labaad ayaa haddana madaxweyne loo doortay sanadkii 2012 xilligan aynu haatan joogno ee bilowga sanadka 2018 waxa uu ku guuleystay doorashada madaxweynenimada markii afraad isagoo xilka hayn doona tan iyo sanadka 2024 masiirkiisa siyaasadeed haddii aynu dib u yara milicsano waxaynu ku gadaanaa marxalado xasaasiya iyadoo xilligii ay dhacayeen barnaamijyadii shacab ee sababay burburkii Midowgii Soviyeeti uu isagu ku sugnaa magaalada Daristan oo ku taala dhulka xilliga loo yaqaanay Jarmalka bari waxaana uu ahaa sarkaal ka tirsanaa hay'adii KGB ee dhanka sirdoonka u qaabilsanayd dalweynihii Midowgii Soviyeeti waxaana uu xusuus qorkiisa ku daray in maalmihii u dambeeyay dagaalkii qabooba ay ahaayeen kuwa saameyn weyn ku lahaa noloshiisa isagoo sanadkii 1989 dhismihii hay'adii KGB ku lahay Jarmalka bari ay hareereeyeen oo isku xeereen dadweyne gaduudsan oo isbedel doonay xilligaas waa markii Vladimir Putin oo dhismaha ku sugnaa uu ka dalbaday gaaskii taangiyada ee ciidankii casaa ee Ruushku inay u soo gurmadaan oo badbaadiyaan laakiin Sofiyeetka oo ka sii hoobanayay bohoshiisii u dambeysay uma suura gelin inay u gurmadaan waana xilligii oo Putin amray howlwadeennadii sirdoonka ee dhismaha ku sugnaa inay gubaan oo dabka sudhaan dhammaan dukumentiyadii iyo qoraaladii yaallay xaruntaasi kacdoonadii xilligaa dhacayayna waxa ay Putin kaga tageen cabsi uu tan iyo maantadan ka qabo banaanbaxyada iyo mudaharaadada abaabulan xilligii oo Putin dib ugu soo noqday magaaladii uu asal ahaan ka soo jeeday ee St. Petersburg oo xilligaa loo yaqaanay Leningrad dhawaansi magaceedan rasmiga ah ee St. Petersburg la soo noqotay waxa uu gacan yara u noqday maayarkii magaaladaasi Anatoly Satobishki oo uu Putin aaminsan yahay inuu ahaa macalinkiisa siyaasadda markiiba waxa uu soo ifaxday in Putin uu yahay shakhsi muhiimad weyn u leh Ruushiyada cusub kadib burburkii Sofiyeetka isagoo urursaday saaxiibadiisii hore ee shaqada samaystana shabakad xiriirsan bartana ciyaarta cusub ee siyaasadeed waxaana uu muddo kooban ka bacdi noqday ku-xigeenka maayarka magaalada St. Petersburg waana sanadkii 1990 inkastoo ay caqabadi kaga timi geeridii macalinkiisii Mr. Anatoly haddana Mr. Putin muddo waxa uu sii waday samaysashada saaxiibo dheeraada isagoo gacan u ritay hay'adda amniga qaranka ee Russia oo ah hay'adda bedeshay hay'adii sirdoonka ee KGB waxaana ugu dambeyntii ka shaqo galay aqalka Kremlinka ahdigii uu Russia xukumayay Boris Yeltsin waxa uu suura gashay inuu saaxiibo ku yeesho siyaasiyiintii ka soo haray xisbiga shuuciga oo ahaa raggii xilligaasi haystay hantida badan raggii ku dhowaa Boris Yeltsin ee gacan qabtay Vladimir Putin waxa ka mid ahaa Boris Borshevsky oo maalqabeen ah gacantiisa midigna u ahaa madaxweyne Yeltsin waana ninkii ku qanciyay inuu soo dhaweysto oo ka faa'iideysto firfircoonida Vladimir Putin sanadkii 1997 ayay ahayd markii Putin loo magacaabay ku-xigeenka maamulka howlaha xafiiska madaxtooyada 2 sano ka bacdina uu ku beegnayd 1999 waxa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha Russia madaxweyne Boris Yeltsin waxa uu iscasilaadiisa ku dhawaaqay maalmihii u dambeeyay sanadkii 1999 waana maalintii uu Vladimir Putin oo gacan ka helay maalqabeenkii Borshevsky iyo kuladii siyaasadeed ee la sabnayd uu isu taagay inuu qabto mas'uuliyadda ugu weyn ee dalleeyahay waxaana uu noqday siyahayaha xilka madaxweynaha waxaana tallaabadii suuragalka uga dhigtay inuu sanadkii 2000 ku guuleysto doorashadii madaxtooyada ee dalkaasi ka qabsantay
dhammaan taageerayaashii Boris Yeltsin ee isbeddeldoonka iyo maalqabeennadii Ruushka waxay rumaysnaayeen in madaxweynahooda cusub ee Putin uu yahay nin u bedeli karaya Boris Yeltsin iyagoo dareemayay in gacan ku hayntooda Ruushka cusubna ay haatan mar kale bilaabatay. marxaladii taa ku xigtana waxay ahayd markii uu Vladimir Putin gacanta ku qabtay warbaahintii Ruushka ahayd isagoo muddo 3 bilood oo kaliya hawsha ku maamulay waana markii ay aqalka Kremlinka la wareegeen taageerayaasha cusub ee Putin lagana saaray oo laga sifeeyay ilaaladii siyaasadeed ee soo jireenka ahayd. gacan ku qabashadii warbaahintuna waxay ahayd mid ugu meel dhashay si wanaagsan taasoo sababtay inuu ka adkaado siyaasiyiintii ku mucaaradka ahaa oo uu ka caydhiyay meelihii ay awoodda ka helayeen isagoo siyaasadiisu noqotay mid quluubta dadka lagu beero iyadoo warbaahintii uu soo gacan geliyay oo ka mid ahaa shabakadii telefishinka ee madaxa bannaan ee NTV oo ay daawan jireen qiyaastii 100 milyan oo ruux tirada oo xilligaa sanadkii 2000 u dhigmaysay 70% dadweynaha Ruushka. xilligan aynu joogno waxaa Ruushka ka howlgala ilaa 3,000 oo telefishin kuwaas oo ka fogaada wararka xasaasiga ah haddii ay wax dheeraad ah dhacaanna waa inay baahintooda soo mariyaan hay'adaha faafareebka waxaana iska yar inay warbaahinta madaxa bannaan ee Ruushka badankoodu qaab live ah wax u baahiyaan. intaa wixii ka dambeeyay Putin waxa uu jeestay sidii uu gacanta ugu qaban lahaa 83 mandaqadood ee Ruushka ka kooban tahay isagoo mid walba u magacaabay siyaasiyiin uu ku kalsoon yahay. intii u dhaxaysay sanadihii 2011 ilaa 2013 waxay Ruushka la kulantay mudaharaadadii ugu xumaa ee soo maratan iyo sagaashameeyadii qarnigeena dhaafay waana banaanbaxyada lagu dalbanayay in la qabto doorashooyin xor iyo xalaal isagoo xilligaasi ahaa markii ay dalal badan oo Carbeed oo ay ka dhacayeen banaanbaxyo lagu radiyay hogaamiyaashii muddada dheer soo xukumayay waana arrimaha Putin dib u xasuusiyay burburkii midowgii Sofiyeeti waana cabsida uu ka qabo waxyeelada ay geysan karaan kacdoonada shacabku. Vladimir Putin waxa uu mar walba u taagnaa inuu ka dhabeeyo fikradii isbedelka oo ujeedadoodu ahayd in kheyraadka dalku leeyahay in laga faa'iideysto Ruushkana yeelato cudud dhaqaale iyo mid military oo damaanad qaadi karta amniga waddankaasi iyo ka saaxiibadiisa iyadoo fursadii dhanka awoodda ee Putin helena ay noqotay kacdoonadii ka dhacay dalka Ukraine taasoo u suuragelisay inay Ruushku qabsadaan jasiiradda Crimea bishii February sanadkii 2014 waana guushii siyaasadeed ee Putin u soo hoyatay waxayna dhabarjab iyo wajigabax ku ahayd dunida galbeedka maadaama ay u muuqatay Ruushka inay noqotay dawlad aan cidina iska hortaagi karin waxa ay doonayso iyadoo qabsatay oo dhulkeeda ku dartay qayb ka mid ah dal kale xilliga oo caalamka oo dhami daawanayo waana mid ka mid ahayd tallaabooyinkii uu Putin ku fashilay gaashaanbuurtii NATO si lamida sidii uu hawl noocan oo kale uga qabtay jamhuuriyadda Georgia sanadkii 2008 Vladimir oo ka faa'iideysanaya halka ay u jilicsan yihiin dawladaha reer galbeedku xilliga lagu jiro waxa uu ku guuleystay siyaasadiisii Suuriya ee uu ku difaacayay xukuumadda Bashar al-Assad. Putin oo ogaa inay wadamada reer galbeedku isku aragti ka ahayn siyaasadooda arrimaha dibadda si midaysanna aanay u waajihi karin mushkiladaha caalamiga ayaa waxa uu dib ugu noqday oo siyaasad ahaan loo wareegay gobolka Bariga Dhexe oo ah mandaqad muhiim ah oo aanay cidina si fudud gacanta ugu wada dhigi karin waana tallaabada dhabaha ugu xadhay inuu sameeyo tijaabooyin cusub oo kaartooyinka ciidamada iyo hubka qaybihiisa ka mid ah waxayna noqotay fariin ay Ruushka ugu sheegayso xulafadeedii hore inaanay saaxiibadeed cidla kaga tegi doonin. Vladimir Putin waxa uu suura gashay inuu shacabkiisa ku qanciyo inuu yahay qofka ay Ruushka u baahan tahay isagoo adeegsanaya wacyigelinta oo dalalka reer galbeedka ugu tilmaamayo cadowga Ruushka waxa uu ka takhalusay mucaaradintii dalka gudihiisa waxaana uu suura gashay inuu faragelin ku sameeyo arrimaha caalamiga taasina waa sababta markii afraad loogu doortay madaxweynaha Ruushka maalintan 18 ee bisha Maarch ee sanadka 18